واسو نقد بل واركينا بقلدابو iga dhac yani qadka ma fiicneen marka videohan waa iga halaabay waa nii soo noqdo laakiin hadana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دبادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaad horta bal soo dhawaad markaas soo dhawaatina hadalka fureenay soo gala way wada dejin way degdeg meeshaan ma jirto khadka igu xuna u maleena marka horta hani la arko qoraalkana kulli waa arkaysiin waa ka fahmi kartiin macnaha aan wato iyo sheekada idin wado marka walaalahayga soo dhawaada insha Allah malay maqlaa hadda soo badtana umleena mi maqluysiin ha amba may soo qor mi maqlaysiin idinka وعليكم السلام آذن داق مي مقليسين malay maqlaa ها اوكي deeqyare waa mahadsantahay gaarkeyga maasha Allah soo dhawaada hala soo dhawaado asmartiyeynina mustaqbalka wadankeena rabaa inaan xogo wax iga fahansiisiin maadaama aan siyaasi weyn ahayn ana raba inaan idinku wax idinka fahmo oo yani aan fahmo waxa dhucuhaayo marka soo dhawaada hore ha loo soo galo videohan noo share gareey insha Allah dantiisa ogeen dabaal waaye marka waxaa maanta ka hadlooyn waa danteeni aytiinkii wadankeena iyo ilmaheyni waaye wixii laga hadli rabo markay xaaladda saas gaarto waxa waaye ani adi isriixriixayn waa meelaan dhigahayna ma dhammaanin GRGL inaa aniga wadada muslimka ay kusoo istaagaan rabaa laakiin maharta mi stai controllando? Grazie. laakiin tayna meelay noo aalisa hadda waxaan rabnaa mustaqbalka wadankeena oo lagu murmooyo dhinac amxaara soo gashay dhooya ninkii madaxweynihii amxaaraha ahaa buuxa taagan bo muqdisho iyo ardi sababo maala dhahay isku mid waaye Soomaali iyo ardi sababo la isku xiraha dhooya la isku hanfuujiha ana kan dad badan dagaalaadkaasna laga dhameeyay dad badan oo Soomaali ah maanta baadka afka loo geliyo oo waliba halgamayaal oo halyeeyaal oo adduunyo ah dadka hadaysan isla dhalanin ee dhibaatada heerkaas cidaas isla marnay isla maraan waxba ka dhaxaynin yani ma umuleynaa si sahal in lagu heshiinayo jeekal koosa keenon baa u dhaha Talyaani siyaasada jirto waxba jiro ileen shalay wixii la isku dagaalay wuxuu ahaa dhul oo umada dhan ay u dhamaatay oo wiilal badan naaga dhamaadeen oo maxay heedeen hatta dagaalkaas alafina anako ku guuleysay rabna ruushka diyaarooyin noo soo kacsan lahaa nal rushay lahaa sidana laga celiyay ilkahayna laga soo bixiyay ayaga ma umudan marka nin heerkaas isla gaarnay Soomaaliya maanta inuu anaka jecel noo qabo oo dhulkeena jecel ku maamulooyo oo dhulkeena jecel ku joogo maniila tahay waa tayni waa tan markay tan cadawga timaado xigsiya imaanayso ilaa hadda waa isxasuuqna waa isdilna waa isdhameyn waa idin way cayseen kooyama laga keen hatta waa tireen laakiin adiga waa ogtahay alafina anina meel baleey keeno meeshas leeyahay oo adigana meesha leedahay marka maanta waxaan raali idinka weydina aan idin soo qabanaya mustaqbalkii dhulkaaseeti yaa lagu haleynooyaa maxaa inoo dan ah tii amxaaradana waa falanqeeyna waxa kale falanqeeyna maanta sheeko igu soo gaartay in Ingiriiska banaanbaxyo laga qaban qaabinooyo banaanbaxyadaas oo keenay in oo wadankeena basiinkiisa la qodi rabo dad waxay taagan yihiin wadankaas basiinkiisa in la qodo waliba waxa waaye dhaqsi waaye waa ku degdegoynaa ha laga joogo madaxdeena waxay taagan yihiin siba madaxweynaheena oo balan ku soo galay in basiinkaas la qodo alaashaan basiinkaas hadii la qodo baahidii dhamaanayso
isbaarihiyaa dhammaanayo isboobkiyaa dhammaanayo qof kasta shaqaa laga siinaa meeshii wuu shaqaysanaya waddan qaniyo noqona oo batrool leh dowladda saasay leedahay dowladda qaarkoodna waxay leeyihiin khasaaraa naga soo gaari karto dad shisheeye markaan gacanta saas iskugu gelino oo anagoo hadda wili diyaar u ahayn internetkayga maanta wuu baxaa imaanaya inaa imaqashiin allah kaso mar kasta ma imaqashiina idin dhaaha ii soo qor asxaankaas ii sameey ila shaqeeya barkee eber inaan ku hadla ma rabi marka calaa kul xaal waxaa la isku haystaa basiinkan waa la qodaa iyo ma la qodaayo iyo waa la qodaa la isku haystaa basiinkan haddii la qodo soomaali badanaa shaqo helaysa soomaali badanaa dhibaatada ka baxaysa soomaali badan oo badan hadduu ilaahay kuuroon yahay faqriga iyo dadka wadankooda ayagoo joogo qaxooti laga dhigayo maanta aqal soomaali amba bac u dhisantahoo duurkaas iskaga jiro ku qadooyo aan war u haynin maxay dheef ka gaaraysaa waayo wadanka hadda wadankan aniga aan deganahay wadan wuxuu ahaa jiray faqri ah Sweden Denmark maxay ahayd meeshaan kalenta ii sheeg Norway aldhaa meeshaan hadda aan joogo iyo Finland shanta soomaali camal ay ahaayeen kan kalena intuu ahaa Netherland shanta soomaali camal ay ahaayeen ha ahaadaane Finland waxaa laga kari waayay iyo Finland iyo maxay ahayd Sweden iyo Denmark way la dagaaleen cidaanay la dagaaleen waana walaalo waa Somaliland Soomaaliya isheeg meeshaan Ogaadenia Kenya kuwa deg saasoo kale ahaayeen cidaana la iskugu tagay dhagaha laga tumay hatta adarduur la gumeystay oo iskaabatuu la geliyay marka la iskugu tagay dhulkii oo dhan laga soo bursaday meesha hadda anaka aan deganahay buuro waaye qisadaan beledkana xogo idinka sheekayna buuro waaye buuro la jibiyay oo la qarxiyay oo guryo laga dhisay way iska soo baxeen dagaalka waa loogu soo guuleystay waa la soo bursaday way soo baxeen boqor oo Finlandees Finland ma aheen maxay ahayd adi boqor oo wadamadaas ka tirsanaa u soo galay boqorkiya difaacay oo ku guuleystay dagaalkii inuu ka celiyo asay boqor ka dhigteen buurihii jajabsadeen guriyay ka dhisteen waa isku toosisteen waa degeen asoo la baahan yahay mukulaalaha la cunaayo oo la rafaadsan yahay waxba wadankii aalin laakiin Norway waxay ku fiican tahay wabiyaal badan maro jidka martid wabiyaa marooy malaay badan u yimid alwaax badan duurka alwaax uu leeyahay alwaaxdana lacagay joogtaa ogtihiin alwaax badan ay heleen ay abuurteen geedo dheer oo shabriga u eg ay qabaan al-aakhir waxay heleen basiinka adduunka ugu qaalisan oo khafiifka oo gaaska ay heleen basiinkii maanta waxa adduunka laga qoodinayo caalamka oo dhan ay deensiyaan haddayna koow galayna labay galayaan taajirnimo shalayna waxay ahaayeen dad xaafadda hataa mukulaal laga waayay baahi aawadeeda marka horta basiin hala qoodo ma xumo war maxay sheegay war af Soomaaliyan ku hadlooya af Soomaaliga fahan af Soomaali ka adiga ku hadlaysid le ma ahan af Soomaali waxaa jira waxaa jira maxaatiri waxaa jira nuuc kasta haddaad fahmaynin oo duurkii lagugu dhalile lagugu koriinaniyo bulshada soo dhaxgalay baysaana noqo sallallahu alayhi nabi war maxay sheegay jawaal isku bilaawaya ayuubow wareerka iska jooji mustaqbalka dalkeena ka hadlooya iyo kheyraadkeena basiinkan waa la qodaa la dhahooyo miyaa la qodaa oraali maan ka nahay mise waxaa u aragtiin sheeko degdeg waayo waxaan dhaxalkeena waa amba adis la haysii ayuubow amba iska dhaaf amba kooyaama laga keen ila taagnaaw waxaan kuu sheegayaa inaan Soomaaliya ahay janta birjanto sida aad u tahay waxaan kuu sheegayaa dhibaatada Soomaaliya uu imaan karto inay saameynayso waxaa kale aan kuu sheegayaa markaan yaraa awowgay wuxuu rajay jiray in wadankaasoo basiin laga qodiyo kheyr leh oo kheyraad yaal inuu la kulmo wadan afkaaga sidii aad u taqaanidan kuu shuurtayha barka in alfabeeta tahay waxna marabti inaa baratin dadka iskala weyntihiina dhageyso awowgay wuxuu hunguri ka lahaa wadankan in basiin laga qodo waa ku dhintay le aabahay aniga i dhalay wuxuu hunguri ka lahaa inuu basiin wadankan laga qodo oo unjoorna aan noqono dad qani oo loo soo shaqo tagay inaan noqono raaligiisi ma noqonin
tuulooyinkayna annaga aan deganahay meel kasto dhul waxaa jira fiisho annaga waxaan dhihi jirnay cusba eeley waa cusba eeley wax la yidhaha ma jirto dhulka hadduu fiishaayo cadaanka waxay ku leeyihiin gaasaa ku jiro batroolaa ku jiro waxbaa ku jiro macdanaa ku jirto marka tan iyo waxaan sugoynaa qarnigii nabi nuux waxaan sugoynaa basiinka in la qodo calaashaan inaan noqono dad qani ahoo loo soo shaqo tagaayo oo wadankooda fadhiyo qaxooti qaabilaya inaan noqono marka hadda waxaa la sheegahayaa aan ku dhahaa saasa igu fahmay ayuubo waxaa la sheegahayaa basiinka ayaa la qodaa marka ana waxaan idin su-aalooyaa arrintaas ma lagu degdegooyaa mise waqtigeeda la gaaray sheekadeyda taas waa taariikhdii aan soo marnay aa idinka sheekeeyey amxaaro dhinacna waa ka wataa oo sheekadeeda iyadana waxaan rabaa inaa ila sharaxdin laakiin muhiimadeyda hadda oo tabiga aan meesha usoo fadhiistaa waxaa ay basiinkaanit marka walaalahayga qaaliga horta heestaan wadaniga idin daara oo markii anakii amxaarada isdagaaleyni qaarkiina ma dhalanin ma fahmi kartiin cadownimada ee dirsaalaha nagu qabteen anakii dhibaatooyinka nala geystay wax aa fahmi kartiin maahan magaari kalka video waxaa ka aragtaan facebooka laakiin waa idinka da'weyntaa sheekadan anaga yacni dagaalka ugu dambeeyaan kusoo gaariyaan yaraa kii hore ma ogi 3 maraa la isqabsadaa la sheegaya laakiin dagaalka ugu dambeeyay waxaan ogaa in wiilasheen ilaa tuulooyinka laga qafaalayo oo madaxa meesha looga xiirayo oo sariiraha hoostooda laga soo bixinayo waa xasuustaa waa joogay calool xume ahayd cunugaaga oo macsalaamiin suuqa laga qabto asoo shaqo ka yimid marka taas waay ani waxa Soomaalinimada iiga bixi karin baladku waa soo dhintay ani ayuub adaa maanta kuugu hal qabsanaa barkii adaa igu bilaawday marka heestaan ila dhageysta walaalahayga qaaliga soo dhawaada dhamaantiina fiidiyaha noo share gareey insha Allah The Ethiopian rout from the hill forts of Jinatsane was total. Huge quantities of abandoned armor would go to swell the liberation arsenal. Jigjiga, a crucial city. Ceded to Ethiopia in 1945, Somali Jigjiga was at last liberated on September the 16th, 1977. Its loss was a decisive blow to the Ethiopians. Of its garrison, no less than half were killed or taken prisoner. Bella so dawa horu sogal. Of its weaponry, masses lay intact for reuse in the battle for total liberation. Allah raalli ahaada qadaa isoo galay مريادة In front, Jigjiga was a triumph. Standing at the foot of the Karamada Pass, Jigjiga had been thought impregnable. Cowed by the presence of its military garrison, the local Somali population had suffered injustice and indignity here for over 30 years, patiently hoping for the wheel to turn. When their chance came to rise and destroy their oppressors,
they seized it with both hands. marka dadka wax ogaayo markaas joogi jiriyo waxa ogaatiin Soomaaliya daciifkan lama aha jirin Soomaaliya gaaladan qabi ugu jawaabi jirna qabi roosa waa ku salaami walaashay soo dhawaaw awood waxaan haynay oo 24 saac wadankeena looga baxo cawada haleega baxo haduu dhaho siyaad bar bijaamada hataa maliska yani guriga lagu ma noqonayo hadii la soo galo bijaamada diyaar lagu saaray awoodasaan lahayn marka alxamdulillah wax kasta wax waaye waqti ku ekihiin nabadda iyo colkan waa isdaba jooga geerida iyo noloshan waa isdaba joogaan adduunka saas waaye santo karo Allahna joojiyo marka heesahaanita oo hadda meesha aan ku haysta xasuus waaye kulliba idinka ma ninka rabo fahmaa ninka kale intana ma fahmi karo barkay ilmaha hadda dhashteen ma fahmi karaan heestaan oo kale aadan u jeclahay heestaan oo kale اوكي heestaas waa maqasheen fiidiyahan waa aragteen xogo ilna iga iimaanaysa hadii xasuusta aado xogo waa calool xumaha roos maxay tiraadi malagu dhalan waqtigaas aan ceebayna aad walay dhalay iska dhaaf sheekadan koodhe calay kul xaal walaalahayga qaaliga waxa idin sheegayaa bisinka la qodaaya waa idin soo qabanaa waxa idin ka rabaa raali waxaan rabaa inaa idinka fahansiisiin sheekadan maxaa ka qabtiin maxaa idinka raali ahaan aa ka wadatiin maama nabad jecel ayaa tahay maamo waa mahadsan tahay yarkeyga Asad Maxamed waa nabad jecelahay laakiin marka aad iwaashino itraahin Zanzibar laga keen waxa waaye kumbooyinkii isgaraacay waa idin caaya taasna waxa waaye difaac waaye ina difaac oo qasbana ileen ilmo yar oo shal la dhaliya qalad lagu soo qofalay marka qaladkii lagu soo qofalay rabaan inay aniga maayl iga dhigaan igu tumaan aan ma ka yeelay markaasaan jooga aan mingista markii la caajiri oo xinjir laqa iyo muxuu ahaa ii sheeg dhiig cabki iyo saqiira leeski iyo markii la dhijiro lagu ololay jiray ya mingista heesihiisa lagu ololay jiray walaashayna magool Ilaahay raxma raxiimiin iyo fanaaniintii kaleenta markay ku hadli jireen aniga xaadir ahaa
oday oo shalay banaanka ka soo galay oo dagaalaa socday kaalinoo kaalmee lagu soo geliyey cunug oo dhalay uma joojinayay ani meeshaan ku dhashtay meeshaana joogay waxaana ogahay soomaali inay u kala baxdo jareer iyo jaleec inay u kala baxday meeshaas la wada deganaa amxaarana isku midaynoo dilaysay mana kala jecleen haddana maanta waa inaan isku mid gogol intaan fidsano oo maxay qabiilkan iyo qashinkan oo maskaxda niilaga qofal ilaahay caafimaad ha idinka siiyee oo maxay ahayd aan ka hadalna aytiinkeena iyo mustaqbalkeena aan warheedha saanaa jirtee maxaan qabsan maxaan sameynaa waxaa la yidhi adduunka mudaharadaada ka socdo waxuuna u socdaa mudaaharaadkaas yacni in basiinkeyna hadda la qodi karin waxaas dhaxalkeeni waay adi dhaxalkaaga waa ani dhaxalkeyga waa asiga dhaxalkiis waa iyada dhaxalkeeda waa dowladda hadda jirta ma tahay dowlad istaabile ah ee lugaheeda ku istaagan maamuli karto go-aan ku qaadan karto in basiinkaas markii nalala gogortamaayo muddo oo anaga oo macquul noo ah yacni basiinka markii lagu gogortamaayo waxaa lagu weydinayaa 50 sano 100 sano 200 sano hataa gaaladan ay ku weydinayaan yacni inay ka ceeshi karaan ay kula leeyihiin marka madaxweynaheyna hadda asiga ma awoodaa inuu dad dhihi karo 25% aan ku ogolahay investedii 50 mise 70% aan ku ogolahay intuu dhila qof dad la gogortami karo heerkaas yacni oo hadda xoolahayni iyo mustaqbalkayni iyo dhaxalkayni lagu soo faagi karo ma gaarnay mise wili ma gaarin su-aasha taas waa calay kul xal warkan waa idinka badi isoo dalbada waa idin soo qabanaa insha allah qofaan weligay soo qabanaa maanta soo qasab maaha waa qarsi kartaa ma fahanti wejigaaga waa qarsi kartaa kusoo qabtay iga qabo su-aashaanan ku weydinaayo maya diyaaru maaha walaashay okay okay codsigiina ma arkooy okay jooji maxaa la joojinaa isoo codsada su-aasha iiga soo jawaaba jooji waxaa la yiri maamo iisho waa walaalka jooji hadal jaleec 100 sano ah saxiixo 100 sano ha saxiixo jaleec maxaa aaga jiro walaalkeygiyo meeshaan dhulkaaga laga hadlooyaa jaleec iyo jareer iyo in laysku hadda waqtiga ani waaba sheegayba alaabtaas meel hanoo taalaan dhahay dhexdeyna waaye sidaan isku fahansiina amba jubad ha laysku fahansiiyo amba hadal ha laysku fahansiiyo amba halays nabar dhabo taas anka shaqo ku leh laakiin hadda waxaa laga hadlooyaa basiinkan waa la qodaa la dhahay oo maxay ahayd maanta inta isoo fadhiisay hadalkiisaan la warwarsanahay dheheen heer Jabuuti waxaan la warwarsanahay oo akhbaaraad idinka weydinaa maadaama wadankiina mar hore igu dambeeyay oo maxay ahayd oo siyaasadana aan waxa ku ahay siyaasadana aan istraana ku ahay aan isku fiicneen yacni waxaa idin su-aalooyaa su-aal walaaltanimo ah waxaana idin su-aalooyaa jareer iyo jaleecbo wadanka in basiinkiisa la qodo hadda waqti xaadirkan ma wax may noo taraysaa ma dheefay noo tahay mise dhibaa naga soo gaari karo su-aashaa meesha u fadhiya taas waaye tan kaleento qadiyadda oo yacni cirabtirka iyo lugooyada iyo rafaadka dhexdeyna noolagu haayo taas gooni waaye filinkeeda taas xaajadeeda mar kale aan falayaa aniga maane haddaan horta idin jawaabo madaxweyne farmaajo waxaas wuu samey karaa mise ma samey kara ma idin dhahay barkee madaxweyne farmaajo wuxuu galo iyo wuxuu gudo aniga maane ma arkin walaxaan simaa uu sheegay walaxaa la raaligelinaa uu sheegay walaxaan qabanaa uu dhahay waxaasoo dhan ma arkin laakiin jaanisaan siinaya ma rabi inaa qofaan ka saynin isugu waxay albaabkaa laygu furay
isoo qawa arkayo laakiin codsiga gudaha ma yaal codsiga gudaha yaalo marabi inaan ku degdego waa xun yahayna ma idin dhahay waa asan yahayna ma idin dhahay barkee waxaan ka sheega dambi waa aniga maan ahaan qoomiyadeyda wax uma qabanin qoomiyadeyda wax uu siiye male aanse qoomiyadeyda rajo been ahoo siiyeba haddii la rabo laakiin ma ihi qof degdegto oo 2 sano u dhammaata 2 sano kale waa siinaya iyo cimriga ka dhiman waa arkaynaa sida quruxda badan oo ku soo galay hadduu uga degi doono sidaas quruxda badan la asoo Soomaali simay asoo Soomaali mideey asoo 4.5 darishada ka tuuray asigoo looma ooy looma aarashay kala dhahay agtiisa aysan ka jirin markuu baxo markaasaan dhigi karaa aleelahay sax nin oo ahaa aleelahay nin fiican oo ahaa maasha Allah hadduu saas yeelin oo anagoo ooynayno oo albaabka ka dega asigana sida kuwi kale oo camal ii kale tartiibkooda iskaga xaluushteen ayagoo dad wax u qabanin inay wax dhibaato kusoo ziyaadiyaan maahayn waxba u sameyn iska baxayeen okay hadduu saas noqdana markaas waa judikaaray karaa waa dhihi karaa bini aadan dambe isiri maayo oo bini aadan dambe madaxa ii silaaxi maayo oo bini aadan dambe ii dhihi maayo dad masaakiin ahoo la gardaraystay baa beledkan joogaan oo maxay ahayd raaligelin ha laga siiyo dhibaatada loo geystay shalay iyo maanta ma bilaabanin 60kii ay ka bilaabatay dambe haddii 114 lugaha macal gacmaha gelisiin hataa may markaas waa dhihi karaa marka idinka farmaajo waa nin fashilan okay ra'ligaaga waaye soo qabso marka nin fashilan waaye ra'ligaaga waaye soo qabsan ra'ligayga waa idin sheega ana mana caynaya idin dhahay mani amaanaya ayaanta hore xoogoo waa wareeriyo maskaxda iga qabsad waa caay jiray mar waa amaani jiray marba saasaan u ordi jiray hadda laakiin ra'ligayga waxa waaye badiyaamo waa arkaynaa hadduu fiyoore hadduu maxaa la dhahaa seerosa fiyoorera hadduu yahay geedkii oo fiyooraha gaduudan ka baxay wuu soo dhalan doonaa hadduu ahaana geed caadi oo qodax oo wax ene taasna waqtigaa noo saa maxaa ii cimriga hadduu ilaah yiraa dalab ma arkooy gudaha iga soo dalbada gudaha hala iga soo dalbado dalab ma arkooy kayga cawda wuxuu yahay umreena Mustafana waa go'ay waa kana Mustafaan soo qabtay waa noqonaa go'aya kuleebo codsina ma arkooy Mustafa darban aan arkooyaa oo qaybta labaad joogo laakiin idinka codsigeena ma arkooy difeetada anima iga socotaa mise idinka program joogto ahaan ka dhigaynaa kan waa qaybtii koowaad Soomaaliyeed maxaa inoo tale ah Soomaali weyne maxaa inoo tale ah jarir iyo jaleeco maxaa inoo tale ah ma tale noo tahay inaan dhulkayni aan ogeen dantayni malaayigayni badayni basiinkayni gaaskayni macdankayni balaayadana lagu sheegi jiro ilaa hadda korkayna loogu korguurooyo shalay waxaan arkay video shalay meed misdaraad tawashir garay video arkay oo niman oo Mareykan ah oo wax saaran markab korkiisa saaran markaas ay dheelayaan Soomaaliya petrol galala bilbi bam bam waxaa lagu niikinoyaa basiinkii badda ku jiray lagu kor niikinoyaa yacni sidii khayraad u yaalo basiinkii badda ku jiray in la soo qodo in laga raaxaysan doono inuu baashaalkooda caadi u yahay dadkaas mishaar caadi ay qaataan anagoo kala waaye waa la soo waday waxaa loo soo waday khimbareysay soo qaateen meeshaan waxaan ilaaliya intaasaan niila siinaya hunguriyaa keeni meesha jecel uma imaanin gaal wax ka wadan jecel ma jirto gaal wax ka xiiso badan oo wadankiisa ugu xiisay anaga wiligeena ugu xiisan dhulkeena waana u soo baxna maba ku noqon hadaan rabno waxaan idin leeyahay bil ma ka maqnaa karaan familkooda saas ay tahay waxay u soo xirxirteen meesha hada Soomaaliya noo lagu jiray waxa way beesadaas anaga waa qabnaa
baddiina malaaya ka buuxo dadaa doon iska dhex dhigteena iska ugaarsanooyo soomaaliya muqdisho kale ku dul furan tahay muqdishadii oon ogeen iyo baddii liido iyo jasiiro iyo meeshii qabeysku tagayn iyo meeshii badda xaarto iyo alahaasoo dhan gudaha haddaa u gashid waxaa maraakiibaa safan malaaya gaatooyaan meeshii xalana miyaa maqaan beledaa laga sameeyey xaafad ma aha muqdisho kalaa ka samaysan oo heer tumasho iyo raaxo heer daraagis intii fasahaad ahoo beledkan ka baxeen dhan oo homeless oo dhana ku nool maanta jaaki iyo garabaati ugu jiraa idinkan dad mac umudeen markaasaa gabdhihii aadayaan wiilashii meeshii maxaheeda ika u shaqeeyaan maamooyinkii ika u shaqeeyaan wax kastaa loo dhaqaa loo karihaa loo sameeya inta shamee heerkaas gaarni siyaad bari waa u darsanay heerkaas shameena lala gaaray shamee intii idinka isku maqan tihiin badiinaa lagu maqnaay gabdhigiinaa lagu maqnaay gurigiinaa lagu maqnaay dhulkiinaa lagu maqnaay intii aniga walaalkaa i haysatid adna lagaa daba shaqeynaya marka hadda ii xaal baddaan wixii ku jiro waaba dhala karaanba waxaan wax dhalanayo waayo malaay waa dhintaa waa dhishtaa dhib male laakiin basiinka xadow leeyahay basiinka muddow leeyahay oo ku dhammaanayo basiinkana marna waa la isku dhici karaa marna waa lagu faa'iidi karaa haddii aqoon daro wax u samaysid waa lagugu dhici karaa haddii aqoontaada ay buuxdo oo business aad taqaanid oo qofku wax la samaysanaysidna waa ku guuleysanay marka madaxweynaheyna oo wili wadan disordan ah joogo oo wili hadalkiisa suuq lahayn oo saa u joogtin kursiga oo la luxoysiin oo ko madaxweyne ahaa jiri hataa har soo noqdiyo madaxweyne jilooyo ko madaxweyne noqo lahaa oo habeenkii doorashada leh oo hami ka lahaa in la doorto jaasaan oo dowlad buuxo ku yaa asna go-aan u qaatoya waxa waaye kurow waa taliha daanyeer waa talihe qambaruuf waa talihe aqoonley waa talihe kondisyoonkaas dadkoo kalaa joogaan ikan hawle diyaaru maanta hataa waa maqasheen maho xamar weyne maskiin dadkii masaakiinta cadcadaay guryo dheerdheer ina meesha lagu dhistay aan ku dhahay layskiga baashaaloya markaasa hawdooda la kicinoya okay taas hadda meesha ma u fadhiya hadda waxaan rabaa inaa idiin soo qabto sugaya no maku soo baxa maya waxaan rabaa inaa idiin soo qabto iisoo codsatiin walaalahaygi raali ahaad qadaa isoo galay isoo qabo waa arkooyaa daadir isoo qabo waa arkooyaa laakiin gudaha kaama arkooyi cilada ay hayso waxaan sameyneynaa anaan ii sheegaa cawada sheekadan waxaa waaye fari kama qodna faanoola usoo noqonaa taleefonka hadda isoo galayay ayaa maxay ahayd akhbaaraad leegu keenay oo aan rabo inaan xaliyo hadda qofaa soo istaagay laakiin okay daadir waaye mana soo qabsamooy daadir ma soo qabsamoysid daadir ma soo qabsamoysid aadaa oga xumaaya wallaahi ma iisoo qabsamoysid waa barowgey ma iisoo qabsamoysid waxaan rabaa أنا دفعت هي ستة ملينا محن سميهنا والله ما نقا محن سميهنا markii sheekada aan wato sheeko in la isla qaybsado ku fiican waa sheeko aan rabo waa inaan la qaybsado aniga idinka cabada rabo inaan maskaxda ii nadiifisiin ma fahanteen basiinka waxaan la sheegay qeyraadka badii gaalab lagu deeyaa iskiga ninikino basiin iyo wixii iska hayba ka hay kii biriga yaale oo wal qoda la dhahooyo يعني waxa aad ka qabtiin يعني ma toosan tahay sheekadaas inaan sameeyno mise qalad waaye jawaabteedaan rabay inta afka meesha u badanaa inaan arko oo haddii idinku u badatiinne
oo may loo bato ma la samey karana anigana banaanbax inaan Norway ka qaban qaabiyo wixii Yurub joogo dhan madaxa isku geliyo maya la yiri walaalihii maya yiri inaan dhaha rabe haddii haa itraahigna walaalihii haa yiri hal qodo inaan ku buuqaan rabe ma fahanteen marka jaaniskaas ba ma helooy aniga sakurmeenta cilad ay haysataa barkee qof kale aan baroobiya tam ii soo qabsan way cilada aniga waa walaalihii qaaliga dib ma leh maya ay tiri Ibrahim ma sha Allah shukran lambar badan inaan aruursadaan rabe maxaa sameeyna ma ka sii mida idin sheegaa habeenkii khamiista waa tiri waa maxaa waaye aadan habeenkii khamiista oo bir ee jimca tahay inta soo fadhiisaha isoo diyaariya markii 12 saac saacadeena ay tahay oo Yurub idinku waxa qabteen hal saac habeenimo Soomaaliya waa hal saac habeenimo Soomaaliya meeshaan iskugu imaano su'aashan idinkoo jawaab iiga wada idinkoo cadadiin ay badan tahay okay waan soo qabanaya aadan deeq oo soo qabanaya idinkoo cadadiin ay badan tahay idinkoo warkiina uu kiyaar yahay laakiin aan waxa u baahanahay dadkii hore dadka aan fahmi karaan u baahanahay mush dadkan oo la dhahooyo Tanzania laga keen oo lagu qofuli dhab furihiina badal lagu tuuri dadkaas iska dhaafa dadka aan iigu jin noqon karo aan ficeyga ee amba iigu weyn amba maxay ahayd la soo kulmay arimahan ka hadlooyo aan rabaa inaan isla falanqeyno insha Allah aadan deeq aadan deeqo cilada ana ay haysataa walaalkay habeenkii khamiista idin balamiye maanta axad maanta isniin waaye 3-4 halaysiyo khamiista al-4 insha Allah waa falanqeynina alijiinkoodi Bomarijo 5 galabnimo waa falanqeeyna sheekada waa isku imaahayna ana cad way fahmi kartaa ayno waa ogaa waqtigeegi waaye amba wax yar iiga horeey waa isku aadanahay siyaasadan oo amxaar ugu dhaxla faaqay waxaan ka wadana ma fahmi kartaa siyaasadan oo asigoo dhul nabad ba lagu joogin oo la rabo qof kalan qaada yani dhulkii oo terremotate oo jabi rabo oo dhuhaya farmaajo keena qof kale isoo dhiibo culeyskiis isla dumo waay marka koleebo Ibrahim anigana aan raaligeeda aan rabaa in maxay ahayd xoogoo yar aan garsiiyo intana ma jiro aan waa idin sheegay barkee farmaajo ma ka saay ilaa aan ka barto amba isku kay baro oo wuxuu balan qaadi oo ka sameeyo alaylaha hashaalila ninka nin daacad waa aan ka dhaw yani ma ku raaci karo raaligiisa laakiin idinka idin weydiinooya haddana maxay ahayd insha Allah waa inuu khamiista hadduu ilaa raali ka noqdo walaalka Ibrahim baar dheer oo ku salaam walaal qaali soo dhawaad inkastoo sii socdo waayo qabashada iga xun mar haddii qabashada iiga xuntahay programkan uu ku socdo in wax soo qabto oo wax la isla falanqeeyo wax ma ka samey kari waa iskaga baxaya waa inoo habeenkii khamiista oo bir jimca soo galayso insha Allah Suldaan Ahmed ينتظر فارق قف كلام بروبيها تام سو قالي كرتين مركا مع سرورة إذن لها ولا لهي وإذن جعلها مع إذن سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.